kulanti wanaagsan dhageystayaal meel baa joogtaan galab wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan xiliyadan oo kale ayaad ka dhageysataan radio kulmiye maalin walba haddii aad joogto gobolka banaadir iyo gobolada ku tirsan FM-ka 88 megahertz aad barnaamijka ka dhageysanaysaan caalamka oo dhan live streamka radio kulmiye teleefanadiina guryaha idin yaala ama gacmaha ku wadataan iyo waliba radiokulmiye.com sidoo kale barnaamijka ka maqlaysaan barnaamijkan galab wanaagsanna maalin walba waxaan ku qaadanaa suugaanta hidaha iyo dhaqanka ka turjumaya iyo waliba sidoo kale waxaan idiin soo qaadnaa suugaan kala duwan oo isugu jira kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii ugu dambeeyey dhalinta maanta iyo kuwii horeba suugaan ay ka heli karaan ayaanu idiin soo xilnaa idinkuna dhagaystayaal qayb aad ka tihiin galab wanaagsan ayaan idin leeyahay cabdirasaaq galab wanaagsan waa tabrandiniyo galab wanaagsan adiga iyo mataanayaasha dhagaysta radio kulmiye ahey barnaamijkeena ayaan gudageli doonaa haddii la yiraahdo sideenay caadi ahayd badaa ka saxiyay barnaamijka sidoo kale waxaa qayb ka ah sheekadii xiisaha badneed ee dhagar jacayl iyo xubinaan ugu talagalnay inaan ka doodno galab kasta aad iyo qaybtii yartay majaajilada waa tahay yaxya mukhtaar iyo xana aadan ayaa barnaamijka farsameynaya marna way nala joogtaay waa sii gudageli doonaa barnaamijkeena haddii la yiraahdo xubinta galabtada lagaga fadhiyay xubintii uu soo dhigay lagaga baahan yahay dood lahayd waxaan ka dhigi doonaa xubinta dooda bari galab maadaama xasuusto sana sheegay adigu shaada iga fiican muddo sheegista muddo meelan ku xakameelan ku sii qoray muddo way iga fiican tahay muddo dhinaca sheegista dhageysta in kasto magaciisa aanan haynin dayax cabdullaahi bakaaru joogay soo ama xubintiisa ayaan galabta ka doodi doonaa jacayl iyo buufis keebaa darnaa inuu ku galo keebaa daran waa markaas ku celi jacayl iyo buufis keebaa daran inuu ku galo si fiican markale aan ku celiyo jacayl iyo buufis keebaa daran inaad laabta ku qaado waayahay waa 4-2-4 ugu telekomeed ku soo diri doontaa 4-2-4 ayaad ku soo diri doontaa haddii marka gaaban waayo namarkaas ay ku soo diri doontaa iyo horta dhalinyarada cabdirasaaq oo dhalinyarada ama dalka joogan ama dibadda jiraan dibadda jooga jirwaayahan eraya ay aad u isticmaalaan waayahay waliba markuu haasawaha ka dhaxeeyaan hadda kor waa noo keentay erayada Facebook ama erayada Soomaaliya ku cusub ah laakiin dhalinyarada haasawaha sameeysan waxaa ka ayaa jira cabdirasaaq horta wali ma lagu yeeray romantic ma tahay lagu yeeray noodarin odayahan ahay kow dheh aniga wali ma aanan maqlin arintan waayaan dhalinyarada aad u isticmaalaan xibal waa romantic saaxiibkii waa romantic saan waaye maxay romantic maxaa la yiraahdaa nin jacayl hay macnaheedu aad qof jacayl ku u jilicsan tahay macnaha aniga camal romantic waa iska tahay iyo waxa kale jira jambalada noo kala qaad noo kala qaadana iyada xataa iska cusub marka bal sheekadan yarta wiilka gabadha dhex maraysa ila dhageysto firi shalay feebar kala soo hadlay daraad taangaha kala soo hadlay mar walba ma iga qabanaysid maxaa saa igu galay abo anigu weydiiyay انت بيسكو هاد شغل بانها شقينيسي ودعي كرتان لكن ما ogtahay ina adi muhiimada ina ka hadalna ay tahay laba qof oo soo socdo in sirga rimagaalnimo madqa islaamana fiican inta hadii kalena anagu kala wadno sheekadii Facebook ku hayna wada romantic iska dhig maxaa lahaa war romantic maxaa ama taqaana oo isqa qaadi karaan aniga hadda daas guursana cununkooda hadda ku dhalwaa buuranaya Soomaalida isteelkeeda waa ma faanta abo romantic lagu sheego Soomaalida isteelkeeda taas waa romantic saasmiya marka waxaan ku sheegay hadaba romantic ma nihin fiir adiga romantic isku sheegay romantic waxa la dhahaa fiiriya soo romantic ma naqi kartid brad mis guursana Soomaali ma badina waxay iska sheegayaan maanta shaqo ku jira aniga ka shaqeynta shaqeynaa mashquul ka ma inta soo romantic inta kariya romantic ma waa soo wacaya waa sheekaysanayna wada hadlayna marka qaad laakiin bis baa marka steena shaqo sama aan marka qaad bis noqon kartaa ma ina waxa waa bisle ani adiga ya Ali Faarax iska dhalna saaxiibooda guursiga badis ma faanta da guur rabine jambalada saaxiib karo wada ay salaam
ayaa darsan صوتي لك كذا تجي ما هي واحد رومانتيك قبل شو فهم وايد ولا شو فهم وايد وايد waxay taagan tahay gabadhii Soomaali ma barina ma yani eriyada aarto wuxuu shaxayd eriyada romantiga style-ka hadda isguursano jahal in ku dhalo oo buurnaay witrani ma qaadi kartid buurnaay mid kale sheekada ma ka dhax aragtay badana hal qabsiga Soomaalida horta maxaa loogu soo hal qabsadaa cali iyo faarax iyo caasho يحاو قبسي وي ما اسمه ما قاعد مقطع اسك في عوام ما شاء الله ما في عوام واتي جنب الله يترنو اصلا نو كلو دو يري دواك بد روماتيك هين يا marka عبد الصادق روماتيك متى انا يقلن waxa ku dahfuranaya dhinaca suugaanta heeso kullu qaarto gorma ku dambeysay Abdullahi Sharif Basto mar hore ma kamid ah heeso kullu qeeyo ila dhigis way sida danahe u sheegaba
laygu sheegaba waaba ina dagaala adib ufiirsan mahayee دربيga waa iska jiraya dib u fiirsan maayo darbiga waa iska jiraya marka darbiga macnaha waa la maraaba mid kale wuxuu taagan yahay marka oo aan dab ku istaagaan damqada markay tala idaaftaan aan dab orda ila doqon hadal madiisay doqon jacayl arkay macnaha de doqon ma ahane jacaylkiisa sida ka dhigay jacaylkiisa sida ka dhigay markaan dab ku istaago baan kuleelkiisa dareema aad iyo darbigan ka joogsan mayo taagan dib uga joogsan ma qaan marka wuxuu leeyahay la doqon aan ahay waayahay in la isku naxariistanaada u fiican tahay Cabdullaahi Sharif Baastow ayaa ku looqeynaya heestan aad baa macaan runtii dhageystayaasha fariimahooda daaqrina noo soo diray waxaa kamid ah dhageystihii qodobkan iska lahaa nusnaantiisa Dayax Cabdullaahi Axmed Jimcaale oo bakaaraha jooga wuxuu leeyahay aniga waxay la tahay jacaylka ayaa aad u daran oo aniga ayaaba arkay buu leeyahay dhageystayaas waayahay dhageysta kale oo magaciisa la yiraahdo Cabduweli Cajiib oo isna jooga cali kamin wuxuu leeyahay buufiska ayaa daran oo aniga ayaaba hadda tabcaan la ah dhageystaas waayahay Xaliimo wayna shibis joogto waxay leedahay jacaylka iyo buufiska markii la soo hadal qaado waxa xanuun badan jacaylka sida aan arkay waayahay dhageystaha najmanaan ayaa la yiraahdaa ruwaayo joogta waxay leedahay daan guda gala qodobka dooda xasaasiga ah runtii jacaylka iyo buufiska waxa daran jacaylka waayo jacaylku waa adag tahay sidaad ku hanato balse buufisku waa wax easy ah ama iska fudud waayahay gala wanaagsan sidii aragtay iyadu waayahay dhageystahan magaciisa waxa la yiraahdaa السلام عليكم كل مين يري وفاطمة وجبتو ذجر أنيقا وحيتري جعيلا لا إلدرنا هرنتي جعلك إلى الدرن أي كودا جعلك إلى الدرن هذه ما سنت هاي سيدا كرا دغستاشا كلا كسو هادلو waxa kamida shan karoon oo joogto shibis waxa leedahay waxa daran jacaylka maxaa yeelay buufiska waxa waa wax la iska dhaafi karo laakiin jacaylka maya waa xanuun aan dhamaanin wallahi ay tirbido way dhaaratay هي دغيستان حبيبه ayaa liiraada waxay joogtaa shibis aniga waxaan leeyahay beetri jacaylka iyo buufiska waxa daran jacaylka galab wanaagsan sidoo kale adiguna galab wanaagsan dageystahan shukriina ayaa liiraada magaceeda waxay joogtaa hurwa waxay leedahay buufiska jacaylka keeba daran jacayl baa daran bay la tahay dageystahan kale waxa liiraada magaciisa Cabduqaadir Maxamed Faarax iyo dhigte Maxamed Faarax وري فرح هذا عبد الرزاق محمد غير فرح لا مرة كحدو جوجا جعلك يا درن بوفيسكو داو ايو ليهي في ليه لكن جعلك داو ملها انيga marka waxa isleeyahay labadaba buufis way daawo leeyihiin jacalka waxa daawo ah qofka jacayleedo aad hesho buufiskana waxa daawo ah meesha dad Mareykanka jacaysa Mareykanka u tahribno marka tagto waxay kula tahay aad iyo saaro oo joogto degmada Kaaran waxay leedahay buufiska ayaa daran inuu ku galo ay tir gabadhaas waayahay dhinaca kale dhageystahan magaciisa waxa la yiraahdaa Anis Elwad waxaan ku suganahay beetrada dowladda Muqdisho gaar ahaan Jazeera oo degan xaafadda la yiraahdo waayahay haddaan qodobka dooda ka hadlo beetrada gabadhaasi waxa daran buufiska marka harsan kartid mana ka hooyin kartid hurdo la'aan ayuu ku ridayaa buufisku waa dib badan yahay galab wanaagsan أوس ولا بنا يا رجستاش سوقتي أرسينا يا سوقنتها أنا قال ما يجوز على سنة بدينا أنا كهور مرة أي حال كان لكن صاحبك يحيى وعيلة ياسر أنا كهور مرة أي هذيك تشوف بس يحيى أركض أنا في السوداء
asluubtooda ayaad oga eed tahay sharafta cid male naftaydani hadday ku ogolaatay cid male naftaydani hadday ku ogolaatay waa ammaanta inaad u qalantaa 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 inaad u qalantaa waa ammaanta haddii ku ogolaatay waa ammaanta inaad u qalantaa waayahay waxa dhan aan kugu ammaanay waa inaad dhegeystayaashaan u laabano nasro jamaal oo joogta xamar jajab gaar ahaan xaafadda ceelgaabta waxay leedahay jaceylka ayaa daran waayo buufiska waa ka ciilbixi kartaa ay leedahay laakiin jaceylka waa uu rafaad badan yahay dhegeystaha magaciisa xiriirada Faysal Cabdi Jaamac BKK ayuu ku magac dheer yahay KBB ayuu joogaa wuxuu leeyahay runtii waxa daran buufiska waayo dawadiisa waa adag tahay jacaylka buufiska ayuu la jeedaa malaha waayahay dhegeystahan magaciisa waxa la yiraahdaa Master Dhaqane ayuu noo soo qoray xamar rajab ayuu joogaa wallahi jacaylka ayaa daran sababtoo ah jacaylka waa dib socdo biyir dhegeystaas dhegeystahan magaciisa waxa la yiraahdaa waxaa la yiraahdaa Nasr Nuur Cabdi waxa ay joogtaa lambar 4 kiiloomitir foo waxa daran bay tiri jacaylka inuu ku galo aniga buufis ima galiyay tiri waayo waxaan jeclahay dalkayga hooyo okay kulmiin oo jeclahay adiguna sidoo kale waa tahay Maxamed Axmed Abu Tariika oo jooga degmada Hulowdaagiisna waxa uu leeyahay mataanayaasha waa in salaamaya marka xigtana buufis jacayl hadii wala soo hadal qaado waxa uu leeyahay jaadaba ka raacay jacaylka ayaa dara hadiyad zaki dhageysta yiraahdo isna jooga Muqdisho soo qoray wuxuu leeyahay jacaylku waa dareen xanuun badan waa dareen xanuun ama farxad lahan kara laakiin buufisku wuxuu leeyahay waa dareen xanuun kaliya leh marka buufiska ayaa daran bay waligu hadan ugu maqnaqayaa sida uu cabir zaki dhageystahan maanta wiilasha dumaraysa xaqeen soo hormareen galba badan oo nidaniyo gabdhaha kaliya akhrisan laakiin waa kana hadana in aad sidii inuu soo horay fariimaha soo dhaceen waa kaasa dhageystahan Maxamed Amiin ayaa yiraahdaa wuxuu joogaa Huruwa wuxuu leeyahay jacaylka ayaa daran maxaa yeelay hadduu buufis galo waxa laga yaabaa wiilada inaan maxaa baraaro laakiin jacayl waa dhibaato ayuu dhageystaas waa tahay dhageystahan waxa la yiraahdaa Yusuf Maxamed Yusuf Maxamed Macalin Yusuf waxa uu la jeedaa sabab Yusuf Maryam Yusuf ma Yusuf darkeenley buufiska ayaa daran waayo lacag ayaa loo baahan yahay buufiska hadada lacagaysa buufis haduu ku galo waad ku dhubanaysaa dhageystaha ala Dorsaki boy ayuu soo qoray waxaan joogaa degmada Wadajir wuxuu leeyahay saawilba xaafadda Siliga waanta jacaylka iyo buufiska labadooduba wuxuu yiri waan soo arkay marka waxaana daran buu jacaylka waayahay
sida midka aniga ahaya camal diirligeystaas Allah ku yasir lena anaga dhalinyarada jacaylka hadda uu hayo galabta farinay soo direen allah waayahay dirsan saadi jacaylku maayo maba iga maqnaado aadiya marin adigana oo ku dhexnool yaa jacaylkiisa waa kaasina la qaba waa ku haya waayahay Bahaji Cabdiqaadir ka maran maxaad isku dhigay maxaad iskaga dhigay ana ka marna ma dhihin adinka weydiin wabigi jacaylku cadaashay Cabdiqaadir degeystaan waxa Bahaji Cabdiqaadir waxay joogtaa xaafadeydii Xamar Jadiid wallahi jacaylka iyo buufiska way kala daran yihiin beetrikii adiga kugu dhacana aad daran beetri marka laakiin aniga aragtidayda buufiska ayaa daran waayo waxay leedahay jacaylka in laga caawiyo laga yaabaa oo aad heshid balse buufiska waxa laga yaabaa in waalidka ay ku diidaan marka labadaba Allah naga hayo waa soo dhacis aadiyad Maryama oo buuluxubay joogto waxay leedahay labadaba way heleen ay u fahmay laakiin waxa daran ama waxa dooran lahaa jacaylka ayaa daran nacam saa daran ay jada ayahay dhinaca suugaantaadina soo dhinaca suugaantaadina ay soo socay adaa markaan ku siinaya iyo dhaanta inta ma amaana saaran ya marka maalmahan dhaantada waan ka jifnaa mugta waan ka jiftaa ayaan dhihina maalmahan xoogaa qacmaan kasi marka cali dhaanto oo dhahaya bal ha roobe haye bal harobe yilacbi ligiyo bal harobe يلعبي لقليا بالحروبي سيد الرافع يا مرشكو بيساعي لغو ربيتوغي ما بيا عالبان كهارتو بريا باهي لهو غابي باي سيد الرافع يا مرشكو بيساعي لغو ربيتوغي بكارتو بريا باهي لهو غابي باي ودكو دايو وايا راكتي يلوي وعماني غناي ودكو دايو وايا راكتي يلوي وعماني غناي ودكو دايو وايا راكتي يلوي وعماني aan ka soo qabto romaduna ee kulaha rafiiqi jacaylka rafiiqina waraadiya ya rafiiqina waraadiya in almidownu meena aad baan u raadiya wuxuu yiri reerkii jacaylka ay kulaha muxuu kala jeedaa shamsi indhaha aad isku jinaysa heesta ma lahaysata maanta dan waxay la aamusnaadaa bal yaabay dhaantooyinka aniga aad baan u danayaa wallahi weli ma ciyaartay shamsu ma ciyaarin laakiin waan taageeraa waan taageertaa kaliya aad iyo aad هاي على دانتو يبل حرب بدن كسر لابنو دقيستياش على دبوا لابنيا لبا دقيست هربنا نقريو مريم حسين أو جوكتا كاران غران حافظ الجمهورية حلدا هاي وحاضرين إنه كوجلو بوفيسكا قلبوا عم بيت قبل أسفل إبراهيم ويدنا وردق لجوكتا مورتنا بدا وعلى هاي
haddaan ka hadla fikirkayga waxaa xanuun badan jacaylka sababtoo ah waxaa laga yaabaa qofka aad rabto inaadan helin laakiin buufiska waa wax aad heli karto waa yahay aad iyo aad wanaagsan tahay hani gabadh yiraahdo in ceelasha biyaha joogto waxay leedahay buufiska ayaa daran ayay tiri waayo qofka jacayl hayo way heshaa jacaylkeeda ama way weysaa ama way ka sabartaa laakiin buufiska waa koronto kugu xiran oo aan nuuxsanin tiriido aad iyo aad wanaagsan tahay sida aragta weeyaan aad iyo aad waayahay wala soo gaaray waa tahay waa la soo gaaray xilligii saacadu waa soo dul istaagtay xilligan sheegada dhagar jecel oo xiisaha badan aan dhageystayaasha u soo gudbi jirnay dhageysi habboon kulanti wacan dhegaystayaal idilkiin kusoo dhawaada qaybtii 46aad sheekadii xiisaha badnayd ee dhagar jacayl oo xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan reediyo kulmiye waa imid ninkii saaxiibkeyga ahaa oo gabadheed waa inaan raadiyaa hadda waa inaan u tagaa waan baxayaa hadda gurigantu ahaa kaale indhahayga miyaa mise qofkaas waxa waaye aabba mugdum guura waay indhahayga miyaa saa camal sug shaqaan u socday hello father hello good how do you do saaxib xaaladda ka waran waa fiicnay alxamdulilah emailka ii soo dirtay waan arkay inaad timid waan arkay waan kusoo wacay waa aragta umalina jawaabta kusoo siiyey waan arkay jidkaan socdaa markay xaaladda ka waran waa wanaagsanay alxamdulilah aad baan kugu fiicanahay ana jidka marayaan arkay markii ii soo dhacday mugtahay taleefonkana wataan arkay marka emailka horan kaaga soo jawaabay iiga waran hooyo ka waran xaafadda Soomaaliya ka waran Muqdisho ka waran see lagu ahaa way wanaagsan tahay waa xalay dhan la hadlaayay way fiican yihiin hadda adigaan ku soo doonay okay waa kan guriga waa joognaa nakan galina soo ringigan garaacayna gabadhaada ka warnay ma furus hadda aragtay waa ka yaabayaan ku dhaano saaxiib maxaa macayish أنا أخبرها سويتي ساعة تاجنا محماش أنا كفير نو سفير اللوقي ديسك الله وعبسنا موقت حسرة توجي وحسنا كوسو قشع الله أبي الله أبي ساتها في عنتها عفماتك الحمد لله أب مرة ما ضوي سفير ويس أنا كسر موقت مرة هذا يقصي ورمر موقته هاي كده أنا جمر كان إما هذا حاجة مسكحة زيد الجناي نو والله أنا أنا قرقنا محبوس كوه ميلان كسايا ملهن لو ينسوح كسوس كبحايا مكينا كوي ما دربي أب أنت دقنتها صدق هذا أب صدق هاي لو ين صقر هاي waxaan ku wadinaa هاي كورنا أبي way wanaagsan tahay aad u fiican tahay waxaan ku wadinaa gabadheeda ها أبو Soomaali iyo London yaa fiican ka waran هذا كله كان هنا هاي كسر كعبه cunugana muxuu ahaa ها أبي ما كسرت معه ويلكيجا goorma dhashay marka الله أبو أحمد أبو waxaan ku wadinaa أبو adi laakiin daral ahaa bilata ma dhame cunugan goorma dhashay waa yaabanay الله أبي أحمد أبو ويل كان أنت Soomaali joogno todobada ku jirnay ayaa jidka ka helna Abo وسو قادنا markaas ha ما شاء الله abnoon beebo qurux badan ma ho aad u qurux badan yahay ما شاء الله ما شاء الله looyan wuxuu go'aansaday anaga korsan maadaama wadada laga helaabo صح waa ogaay sidaas waa mugdi muguura ku dhalisay dadka ina u maciintid aad iyo aadan kuugu ogaay Allah aniga ala wiilkeyga jidan ka helna laakiin fiire gabadheeda Abo anigan aniga markaan fiiriyo
indhahaaga iyo sankaaga afkaaga iyo wejigaaga uu leeyahay hana abso ii fiirna maalkas anila ii ekaadno shaqaan leeyahay abaa joog soo baxee soo laabanaysaa xoogaa ma sii joogta saaxib xoogaa sii joogkaade adii waxay sameeyeen strike mana dhaweyto marka hadda waa u tagaaya waa soo xalinaya warankiisa kala wareegaya okay wey waa okay باي باي حبيبي هاي أنا مرتقاضة مانت gabadhayda هابو hooyada ma la hadashay أبو مالبهان ما لحد من أيام هرا وعمر إن سمع معنا نشاقي لكن مرة موعنا بمشان مشغول بيبي كان يريسك ويسكو إنا يا مركب أرنتي أكو مشغولة أب لكن هذا وعواي واي هويدا هذا سوا أنا سي وعاي اسكت هذا كان لا هذا هاي أبو أنا جا وعاي ألو ويسو وعي ألو مي مقشة واكو مقلا عمبر ساته وانا الجيب متكتي مرة أنا تجي حالة هذه جورن حالة إذا أبوست ويا وفي عنا قبل ما أركتي قبل دوا أركي وأصل شوك نايه أريديب قبل يديب قبل وايا قبل هذا لا وذاي لا هذا لو عاوذاي هايو اللولة هاي واكو عيساني اللولة هايو قلبي لولاي هايو يعني قدبت هذا كنت جبت قرمي يقدم بس هايو لولا قلبي لولاي هاي جيجيل كيرس كورن دار ديرس جيجيل كجعلا عد هاد واجوكتا هايو وابكو حناني هاي وابكو حسوستا هايو وجعلا وصح حسوسنا waxaan ku dhahay waa ii soo dhiibaysaa hooyo marka inta joogna cabaar hayo hooyo yaa ku soo qaadaya hadda yaa ku soo qaadaya waa goobta kasta waa roonaatay waa diyaarada soo saareeno war ma diyaarad baa la saaraa diyaarad baa cunug yar yar oo jijiila la saar kara waaba ku dhimana diyaaradu ku dhac dhimana dhagayso hooyo hooyo ma fiicantiin hooyo diriska ka warna fiican iga waran igaarkayga looyaan ka waran hooyo wuu fiican yahay ma intaas uu ii keen hooyo wuu iska baxaya guriga maba joogaayo baa asiga maya waa shaqaale wey waa shaqaynaya iska dhaaba shaqeeya adiga guriga lagu ogyahay asla shaqada lagu ogyahay meesha meel fiican ma guriga la lagu xabusnaana uu qurux badan tahay laakiin oo guriga la lagu jira meel ma la aaday aniga inaan wareegaarba hooy magaalada inaan soo kala ararkamo gabadhayda gurigaada joog hooyo looyaanaa soo shaqeey saaxiibtay Leila ma ku imaadaa Leila baryahan ma arkin الله هويدي محا هويدا دي حتى ما سأركتين ميادي war isma aragno هويدا قولي لما كجرة محا دع مقالة ما أدد ميا محا كجرة مقالة بسم الله الرحمن مقالة لما سعقر هذا دافع يمد هوي عنتظي أكوكري هواي تبتاو ملينا مايا لما تبنو كنت بين أنا وعلا كنت أركتين هذا اللي الله هوي سور كيغا كوسو ديب أنا حتى أكوحي السور ذا دي يسو ديب هويو هيا واكو سلامة مع سلامة قبرتين هوي واكو عيساني هويو أنا قادر قبرتيدي الله هوي لولي قلبي قاعد حلو يا أنا كوسو ترى يسوي ردي هاي نوني ريسكا كوكينا مردوا صبحنا إيكن ويلك أنا أنا قاعد سنا يا إيكن هاي هويو إيكن ويلك باي باي مع سلامة هويو حاجي حبيبتي حالتك ورن اوكي عافمادكاغا إلهي نمعديس horta حاجي caaw waxaan ku sidaa sheeko muhiim ah ما شاء الله waxaan rabaa inaan kala hadlo arrimo ka saabsan gabadheena si fiican xaji waxaan rabaa inaan horta ogaato in mar dhow gabadheeni la soo doona rabo waa gartay waa ogtahay gabarii hooyadeed bay ku sir qarsataa si fiican waxay tiri hooyo abo iga sii jawaabtaas iga sii gaarsii waxaan rabaa inay uu dadkaas uu iga qaabilo wayna ii soo socdaan hadda waa kaasa waxa laga rabaa dadkaas inaan soo dhaweyso ugu korona ku soo dhaweyso ma sha Allah waa soo dhaweynaya 100% waxaad adigu ku faraxsan tahay Soomaa oo gabadheedana ay ku qanacsan tahay Soomaa waa soo dhaweynaya 100% okay waa mahadsan tahay adigana adaa mudan inta inoo joogta qaybtii 46aad sheekadii xiisaha badnayd ee dhagar jacayl waa fikradii Xayr Cali Rooble tan intaan qaybta xigta ku kulmi doono nabadgeliyo dhulka yaga naga u dhimanayne waa qalaaya dhulka yaga naga u dhimanayne waa qalaaya
isku soo noqod wanaagsan mar kale qaybtii labaad ee barnaamijka galab wanaagsan ayaan ku soo laabanay maadaama aan ka soo laabanay sheekadii dhagar jaceyl iyo weliba qadarada bulshada Abraano dhinaca dhegeystayaal fara badan ayaa fariimo noo soo diray oo runtii fariimahaasna ay aad u tiro badan yihiin marka dhinaca laga eego waxaa ka mid ah dhegeystayaasha haddaan dib ugu laabto dhegeysta magaciisa anfac cabdiqani la yidhaahdo waxay leedahay waxaan idinkala jaan qaadayaa wadajir waxay leedahay jacaylka ayaa daran dhegeystahan magaciisa isagana waxaa la yidhaahdaa nuur sheekh wuxuu joogaa kaaraan jacaylka ayaa daran buu leeyahay sababtoo ah jacaylka waa loo dhintaa waana la isku gubaa ayuu yidhi weliba gabadhan ikraan ayaa la yidhaahdaa ifka nolosha ay magac dheer tahay waxay leedahay haddaan qodobka dooda fikirkayga ka dhiibto waxaa daran jacaylka waayahay dhegeystahan kale waxaa la yidhaha doctor cismoon aadan waxaan joogaa wuxuu leeyahay doctor cismoon aadan waxaan joogaa uu soo qoray oo kale uu iloobay xataa ka daftay marka wuxuu leeyahay haddaan dooda u galo waxaa fudud inaad ku qaado laabta buufis waayo shiidnimo badan ayaa jirta allow sahal amuuraha ayuu yiri doctorka aad buu mahadsan yahay dhegeystaha magaciisa mmj ayaa la yidhaahdaa deegaankuna wuxuu yidhi waa yaaqshiid wuxuu leeyahay waxaa daran buufiska ayaa daran buu leeyahay waxaa habboon buu leeyahay jaceylka inuu laabtaada galo xal ayuu leeyahay markaas waayo buraan adigii dhegeystayaasha halkaa ii joogay xubintan dhinaca dooda ah ee ku saabsan jacaylka iyo weliba buufiska waxay soo jeedata xubintan saaxiibkay sakariye soo dhawow galab wanaagsan wadhawahay burhaan iyo shiine iyo farsafaqaan yaxye haye qodobkan bal ka waran keebaa daran jacaylka iyo weliba buufiska wallaahi horta burhaanow qodobkan waa qodob xasaasiyad leh laakiin ani ahaan xiisuu leeyahay ilan labada qodob sidaa iskula meel dhiga ahba ani xataa ka hadli waa laakiin qodobka jacayl markii la dhahay iyo qodobkan kale buufiska ah wallaahi horta waa laba qodob oo kala daran laakiin ani ahaan waxaan dhihi lahaa waxaa daran buufiska waayo jacaylka markii la dhahaa waxaa laga yaabaa inaad jacaylkaadi heshid wax walbaa kuugu qaadatee laakiin markii la dhahaa buufis waxaa laga yaabaa buufiskii in awooddaadii noqon weysa inaad baxdid in bannaanka qof wado hore kuusii saacido ee suurageli weyso marka anigu ahaan waxaan dhihi lahaa in wax walba waa kuugu qaadatee aa heli karta jacaylka laakiin buufisku aad u adag yahay sakariya ha kicin horta weli buufis miyuu ku galay maya si kale weydii labadooda kee ku galay labadooda marka hore horta muhiimadda waxay qodobka dooda in laga hadlo laakiin hadda markii ani ahaan laga soo bandhigo waxay noqonaynaa isdifaaco laakiin waxaan dhihi lahaa weli labadoodaba waa ka fara dhudhuwanay labadoodaba aad iyo aad mahadsantahay sakariye dhegeystayaasha haddaad dib ugu laabto gabadha magaceeda filsan baa la yidhahdaa waxaan joogaa bay tiri degmadu waa beri inuu jacaylku galo iyo inuu buufisku galo waxaa aad u daran fikirkayga inuu buufisku galo ayay tiri gabadhaasi dhegeystahan kale waxaa la yidhahdaa fartuun waxay joogtaa gubta waxay leedahay waxaa daran jacaylka maxaa yeelay ruuxa aad hamiga u qaaday inaad weysid ayaa laga yaabaa balse buufis waa heli kartaa waqti waliba waayahay oo kusoo wajaho macnaha waa iska tahriibi kartaa ha ka wadaamadayay dhegeystahan waxaa la yidhahdaa magaciisa dalmar darajo waxaan joogaa buu leeyahay warta nabadda aniga waxaan dhihi lahaa buu leeyahay jacaylka ayaa daran dhegeystahan kale waxaa la yidhahdaa magaciisa najla nuur kaaraan ayay joogtaa waxaa daran buufisku inuu ku galo waayo lacag ayuu rabaa bay leedahay magafana meel ayuu kugu sugaa hadduu ku galo buufiska weeyaane waxaa la joogtaa hadduu jacaylka ku galo laakiin waxaa la joogtaa dalkaaga hooyo kii buufis lahaa dhul shisheeye buu kaa ridayaa bay tiri walla magafa waa laga sheeg waayahay buraano waayahay bal dhegeystayaasha ugu dambeeya inaan soo koobo cabdinaasir caato dhegeysta la yidhahdo waa beri joogo wuxuu leeyahay jacaylka iyo buufiska waxaa daran jacaylka dhegeystaha sharmaaka cabdiraxmaan maxamuud shankar baashaalow ayaa la yidhahdaa yiri jacaylka ayaa daran buu leeyahay sababtoo ah jacaylka mar waa macaan marna waa marax laakiin haddii aad baxdo wuxuu dib ayaad ka gaari waayahay dib ayaad ku gaaraya ramla cabdi aadan gabadh yidhahdo waxaa fiican inuu jacayl qalbiga galay tiri gabadhan qofka ugu dambeeya aan farintiisa akhrin doono wuxuu noqon doonaa xukun xasan waxay leedahay waxaan joogaa hodan waxaa daran bule inuu ku galo buufis anana markaas lacag
lacagteeda aadan haysan waa yaradi kuma maasan tahay adiguna sidoo kale aad mas dhageystayaal kale tiro badan baa soo qoran runtii fariimo laakiin waqtiga ayaa banoo saamaxayna waa tahay dhageystahan ugu dambeeya burhaano haddii asnaan aqriyo waxa uu leeyahay cabdalla xaaji cabdalla tawfiiq ayuu joogaa waxa uu leeyahay buufiska ayaa daran gabagabadiina waan soo gaarnay waxay isdhahiin horta nin hees dhaxaa idiin soo dhacdo laakiin waqtigan oo saamici waaye laakiin dhiba lahahay galabta lamaanaha ayaan kusoo gabagabeynayaa rashiid bullo iyo allaha u naxariistay farxiyo cali heesay wada qaadaan ayaan soo deyn doonaa maxaa laleeyahay ku tabaya muusikada maqlaa ku tabaye tani bari marka dhegeystayaasha maxaa leenahay nabadgelyo
tabaye malawa asqawde anni maharuhu urkagu tabaye Onko digu hilaace